السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلب وناكسنا أصحابي ميل كستو عاد نقدا ونيسان كسور دوادا برنامج كي لباد وبرنامج كي قلب نمو مانتو سبتي أن دين سو قد بنيو تاريخ دواشنية طبعا كان نوفمبر سنة كالباكونية شانية لباتن قضبدا برنامج كان دي كوغا يوحا كبدا warar cusub oo ka soo baxay ciidankii Xamaas ee ku go'doonsanaa dhanka koonfureed ee Gaza Mareykanka iyo Israa'iil oo wada hadallo aad u qaraar oo arrinka ku saabsan uu hadda dhex marayo haddaba maxaa laga filayaa tafaasiil ku saabsan sheekadaas iyo halka ay marayso barnaamijkan idinkugu haya ciidanka ilaalada kacaanka Iran ayaa markii ugu horeysay maanta faahfaahin ka bixiyay markab shalay lagu eedeeyay inay iyagu qabsadeen haddaba mandhabba ciidanka Iran miyaa markabka qabsaday maxayse u qabsadeen ujeedada loo qabtay maxay tahay haddaba tafaasiil ku saabsan sheekada markabkaas iyo Iran oo qiratay inay gacanta ku dhigtay markabka iyo waxa ay u qabatay ayaanu barnaamijka warar muhiim ah oo soo kordhay idinkaga haynaa dhanka kale barnaamijka waxaanu ku soo gudbin doonaa Israa'iil oo hortaagan in la geliyo Gaza waxyaabaha muhiimka ah ee hadda ay u baahan yihiin shacabka Gaza oo ah teendooyinka iyo guryaha guurguuro ee la isku rakibo maadaama roobab culus iyo qabow daran uu ka bilowday halkaas haddaba sababta Israa'iil ay u hortaagan tahay in la geliyo alaabtaas oo hay-aduhu ay wadaan maxay tahay ayana wararkii ugu dambeeyaan idinkaga haya sheekooyinkaas barnaamijku waa kii labaad waan filayaa inaad si weyn uga hesheen wararkii iyo macluumaadkii aynu ku soo gudbinay barnaamijkeennii hore ee saak Xamaas ciidankeedii go'doonsanaa haddaba wararka qaar oo laga helayo Gaza wariyaashu waxay leeyihiin 3 ilaa 4 maalmood gudahood haddii ciidanka halkaa ku jira aan xal loo helin waxay samayn doonaan way soo bixi doonaan dagaalana halkaa ka dhici doona roobabaa da'ay waxbaa da'ay qabowbaa bilowday laga yaabay in dhibaato qabowga iyo roobka iyo uu u geysto marka ciidamadu intaa ma dul qaadan karaan inay soo baxaan oo ay dagaal Israa'iil la galaan oo markaa wixii dhimanayana dhinto wixii noolaanayana noolaadaan ay xoog ku soo jiiraan ama in arrinkan xal loo helo haddii ciidankaas xabaddu ku bilaabatana Xamaas waxay horay u sheegeen dhexdhexaadiyaashan u sheegeen inaysan xabad joojin meeshii jirin iyaguna ay meeshii soo gaareen hawshu ka bilaaban doonto marka maadaama laga shaqaynayo isniinta soo socota sidii barnaamijka hore aan idinkugu sheegay golaha ammaanka inuu ka fariisto arrinta Gaza oo ciidankii nabad ilaalinta hawshiisii iyo nabadii laga shaqaynayo Mareykanku markuu wuxuu doonayaa inta aan isniinta la gaarin in Israa'iil ay arrinkan isla meel dhigaan Israa'iil waxay ku adkaysanaysaa dawlad saddexaad in loo raro dadkan meel kale halna la ka geeyay Mareykankuna wuxuu taagan yahay war dawlad saddexaad waa la laayahay Turki iyo Masar iyo kuwan diiday nimankan hubka aan ka dhigno ee dadkooda dhinaca ka raaceen marka maanta waxa leeyahay dood aad u kulul ayaa mas'uuliyiin Mareykana iyo kuwa Israa'iiliyiin ah u socota leeyahay xilligan aan idin la hadlayo haddaba marka aan idin tuso wararkii ugu dambeeyay telefishinka Al Jazeera ayaa wuxuu leeyahay maamulka madaxweyne Trump waxay cadaadis xoog leh ku hayaan Israa'iil si loo soo afjaro dhibaatada Rafax ka jirta ee ciidanka halka ku go'doonsan shabakada Mareykanka ee la yiraahdo CNN ayaa waxay soo saartay warbixin ay ka heshay laba dhinac oo Israa'iiliyiin ah in maamulka Trump ay ku wadaan Israa'iil cadaadis xoog leh oo ku saabsan dagaalyahanada Xamaas ee Rafax ku sugan Israa'iil wali waxay ku adkaysanaysaa in la tarxiilo oo la geeyo dawlad saddexaad oo markaa si looga saaro meesha laakiin Mareykanku waxay doonayaan iyagu wixii xal ah in la gaaro laakiin in arrintan wax laga qabto marka Mareykanku iyagu dawlad saddexaad haddii la heli karo dhib ma la helayn laakiin dawlad saddexaad xagee ka keenayna yaa nimankan loo geynaa nimankan de iyagu ma rabaan in meel kale la geeyo Xamaas ma rabtaa may marka dood aad u kulula arrinka ka taaganaa lagu leeyahay marka waxyaabaha khatarta keenaya waxa ka mid ah dhowrka maalmood ee soo socda halka waxba ka qarxi doonaan leey haddaan arrinka xal loo helin
arrinka haddaan xal loo helin meesha volcana qarxayaa le waaba baal qatara xabadda meesha ka bilaabanaysa halkaasaa marka baashu ka bilaabanaysa sababtu maxaa keenaya cimiladii isbedeshay Gaza waataan xalay barnaamij ka sameynayay maanta hadda waan idin soo wadaa roobaba bilowday xilligii qaboobaha la gaaray de Gaza waxay leedahay bilo qabow ahaa jira iyo bilo kulul iyo wixii kuleelkii marka uu dhamaado xilliga roobka lagu jira qaboobihiya ku xiga dadku marka waa dhibaataysan marka sheekadaasu halkaas ay marka maraysa khatarta marka laga baqayo wixii kulay ka soo kordha arika waa arki doonaa waxa noo soo socda sheekada muhiimka ah barnaamijka galabta aan idinku hayo ciidanka ilaalada kacaanka Iran oo war ka soo saaray markabkan shalay idin sheegayay ee Imaaraadka ka baxay Singapore u socday oo ay qabsadeen haddaba maxaa loo haystaa tafaasiishii ugu dambeysay adeen hayaa qaybaha dambe ee barnaamijka ayaanu arrinka ku soo gudbin doonaa laakiin markan waxaynu u gudbaynaa iyadoo roobabka iyo qabowga Gaza ay aad u soo xoogaysanayaan teendooyinkii ay ku jireen biyo qaadeen qaarkood dadku ay iska dhibaataysan yihiin ayaa hay-adihii gargaarka waxay la tacaaleen oo ay markiiba gargaar la aadeen Gaza iyagoo teendooyin wada iyo guryo maaragtay loogu talagalay dadka in maaragtay la siiyo si ay roobka iyo qabowga uga galaan maadaama guriyii ay burbursan yihiin waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid ah soo baxaya maanta Israa'iil inay hor istaagtay hay-adihii waa yaaban yihiin waxay leeyihiin gawaaridan teendooyina saaran roobaa da'aya dadkiyaa loo wadaa maxay tahay maya lama gaarin maxaa loo gaari waayey waxaa loo gaari waayey weli ma dhammaystirin 3 lafa meydkooda nooga dhiman meesha war wuxuu maxay ahaayeen hadda marka waxaa leeyahay waxaa soo baxay sheeko ku saabsan mas-uuliyiinta falastiiniyiintii ayaa warqado adduunka oo dhan u qoraya warqad maxay ka qaadaysaa Israa'iil war Israa'iil fasaxdo dadkii qabow iyo dhibaato haysata waati maalin hore markab uu soo raray ninka leeyahay Erdogan uu soo diray isaguna wadada ku soo jira wixii oo dhan marka xaggee galayaan Israa'iil hortaagan haddaba marka aan idin tuso wararkii ugu dambeeyay arrinka ku saabsan laga qoray haddaba telefishinka la yiraahdo al-Arabiyya haddaba telefishinka al-Arabiyya wuxuu leeyahay madaxtooyada maamulka Falastiiniyiinta ayaa maanta sabti ah dowladaha caalamka waxay u kala dirtay khaasatan Mareykanka in marka la sameeyo gurmad degdeg ah si Israa'iil ay u ogolaato iyadoo la tixgelinayo xabad joojinta laga gaaray Gaza Israa'iil in cadaadis la saaro si ay u ogolaato in la geliyo guryo diyaarsan iyo teendooyin marinka Gaza maadaama howlaha ku saabsan xaaladda dadka ay aad u adag tahay hawaduna ay aad u xun tahay roobab iyo qabow fara badan oo halka ka jiro hawjida marka nimankan wax walba way hortaagay ma jirtay leey marka adduunka oo dhan qeylay marka maamulka Falastiiniyiinta marka way qeylinayaan waxay leeyahay arrinka Mareykan hawshan kale ku mashquulsan yahay askartan iyo waxa kan iyo middan dadkan dhibaataysan roobka ku da'ayaan waaba iska dhagatiray marka hawshu marka halkaas aad ay uga qasan tahay dadka dhibaato xun haysata roobaya ku da'aya dhibaato haysata albaabkiya loo taagan yahay waxba ma soo gali karaan la leeyahay hatta hadii adduunyadii ay wax u keentay meel wax loo marsiinaa marka u duceeyay reer Gaza in Ilaahay dhibaatada iyo mushkiladda ay ku jiraan in Ilaahay uu ka qaado dadka culays haysta waataan barnaamijkan kii ka horeeyay ku soo qaatay guriyihii Falastiiniyiinta ay deganaayeen ee Masjidul Aqsa hareerihiisa ahaa kulli waa laga xoogayaa barnaamijkii saak hadda daawato yaabaysa marka halkaas ay wax marayaan qadar xayisiisa kadib waxaan soo dhawaada barnaamijkeena galabnimo waxaynu maraynaa qaybihii ugu dambeeyay barnaamijkeena maanta waa sabti oo qaybtan waxaynu ku soo qaadanaynaa shalay waxaan ka hadlaynay markab ka baxay Imaaraadka oo u socday Singapore markabka Singapore u socday oo Imaaraadka ka baxay waxa lagu sheegay xilligaas inuu waday shidaal
wuxuuna watay leeyri calanka jasiiradaha la yiraahdo Marshall laakiin warar qaar waxay sheegeen imaaraadka laftirkiisu inay wax ku leeyihiin markabka oo shirkad imaaraati ay lahayd calankan iyo waxalaabtan waa lagu dhex gabanay hawla kala marka meesha lagu watay okay waxa soo baxay marka in markabkii markuu marayay meesha ay maraan maartay maraakiibta la yiraahdo Hormuz in doomo ay markabka ka haysteen diyaarad Mareykanku leeyahayna ay sheegtay in dhanka Iiraan lala aaday markabkii salay ilaa saakay wax wara Iiraaniyiintu kama soo saarin haddaba maantay ayaa waxa hadlay ciidanka ilaalada kacaanka waxay xaqiijiyeen horta numberka koobaad in iyagu markabka qabteen waxay u qabteen markab dariiqa maraya sidee loo qabtay waxay yiraahdeen markabkan halis buu ahaa wuxuu waday chemicals iyo alaabooyin kale iyo waxyaabo kale oo khatar ku ah aan la ogolayn ayuu waday xaguu u waday marka Singapore waa quraafaday leeyahay meelo kale oo halisa oo Iiraan iyo waxa kan dib ku ah ay imaaraadku waxa kan u dusinayeen meelaha laga keenay marka markabka dacwada lagu furay marka waa la haysaa cidii afka kala qaadi lahaydaan rabnaa isdhihi lahayd markabkan annaga iska leh maxaa loo haystaa waxa aan ku hayno waa wax adduunyada ka mamnuucay leeyahay والله يا لوك إيرانيتو أبلاي سيدكو أوغادين ما جرت بار والبا بصاصي وحبا جوي مركو والله يا بيا عايدة تصوركي وقد بيشا كلاس تلفزيون كالعربية يا وحولية إذن كإلالة كعانك وحي حقيقيين إن إياقو قبتين مركب كي شدالك وذي مقعيسو أها تالارا كاسو لشيغي إيرانيين تو أي شيغين إن شحند وذي أي غيب كأهيد alaabooyin khilaafsan waxyaabaha adduunka laga isticmaalo haddaba marka warbixintu way sii socotay warbaahinta Iiraan ayaa maanta si rasmi ah u sheegay oo sabti ah in ciidankooda ilaalada kacaanka Iiraan ay qabsadeen markabkaasi shixnada waday haddaba Iiraan waxay sheegtay markabkan inuu waday shixnad lagu magacaabo maado petrokimaawiya la yiraahdo oo ay sheegeen inay u socotay Singapore laakiin ay meel dhexe ka qabteen waxaana la sheegay in markabkaasi hadda baaritaan lagu hayo iyo maadada uu waday oo halista badan iyo waxa loola jeeday in lagu sameeyo marka waxa leeyahay qaar wadooda socota mufti waxay leeyahay imaaraadku nimayo markabkan isaga iskala wadigiisu ka soo baxay wuxuu hadli laayay أنا أيدي شيء كده إمارات إيران مسكوا الوالكرو ما يسكوا تاجي كره إيران إمارات ما لها كردت كمساكين توسكا عايش ذا لكن عيدا كإلى كعان كإيران يلابتر ما لا فارود وما قال كرو سدح جزيرة دود أو ولا لا تجي جزيرة دي هي شيء الله يشتاق ومروا الباقي يا أولي جزيرة ذا هي جزيرة يعني دقي شراي طنبا الصغرى يا طنبا الكبرى يا أبو موسى يا الكلير هذا جزيرة ديش مركا هوشا هالكاس يا بريسان لما كانوا حلي مركب كان ألاب تنصارا وابا ألاب كيميكا قطرة ويلين وغني ميشاني تاقين إيراني تعادي با مركا انتي اسكالة حيدا الحرباء إليهم وحن يا اسكالة مركا والسعوتا وش مركب كوا عديين أناقا قبانين دهين أناقا حيشانا ألاب تنكيس كانا كوينا وحي عصب واركي دولنا sheekadu halkaasay hadda maraysaa waan idin soo update gareyn doonaa warar cusub haday ka soo baxaan barnaamijkii galabtana waa naga intaa la gareeyo oo share gareeyo fakarkiina aragtideen dhiibta hana iloobinina inaad mar walba u ducaysaan reer Falastiin gaar ahaan reer Gaza xaaladooda waa u jeedaan xabadii yaa ka yaraaday haddana roob iyo qabow iyo alaab kale la galay marka ilaahay dadka un faraja u furo in gurigiisii masjidka agtiisa ku yaalay yahuudiya la dejinaa ka guur la leeyahay adduun ka hadlaayana aanay jirin wallahi waa yaab marka u duceeyo dadkaas inta aan markala kulmayno nabadgelyo